habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin dimuqraadiga waxay u muuqdaan in ay ku guuleysanayaan sanadka Mareykanka maadaama ay soo baxayso natiijada doorashada ku celiska ee gobolka Georgia warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa ka mid ah Nigeria 36 barasaab ayaa qaatay go'aan ay kaga dhigayaan kufsiga xaalad degdeg ah arrin la filayay inay noqoto isbedel 10 sano ah ayaa isu bedeshay sanado niyad jab ah waxaynu dib u eegaynaa 10kii sano kadib akacdoonkii dunida carabta allaha u naxariista wariyihii caanka ahaa ee BBC-da Axmed Cabdinuur ayaa saakay ku geeriyooday magaalada London kadib markii uu muddo 7 ah ku xanuunsanaa waxaynu eegi doonaa caawa taariikhdiisa kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka Mareykanka oo dhan ayaa sugaya natiijada doorashada muhiimka ee labada kursi ee Georgia ee sanadka Mareykanka saamiga ma ahan mid sareeya maadaama ay natiijada saameynayso mustaqbalka madaxweynaha Joe Biden oo la filayo in 2 toddobaad ay bilaabato hadda si wanaagsan ay xisbiga dimuqraadiga ugu muuqataa hal musharax Raphael Warnock ayaa guul sheegtay mid kalena John Ossoff boos fiican ayuu joogaa doorashada Georgia ayaa ah mid ku celis ah sababtoo ah midkoodna musharaxiinta doorashada guul ma helin 50% guusha loo baahnaa sida uu qabo qaynuunka gobolka dimuqraadiga kuma guuleysan tartanka sanadka Georgia 20 sano balse waxa sare u qaaday xisbiga guusha madaxweyne Biden dhammaan 4 musharax ee labada xisbi waxa ay geliyeen doorashada ku celiska ah ku dhawaad 830 milyan oo dollar taasoo ka dhigaysa labada kursi ee ugu qarashka badan taariikhda sanadka Mareykanka haddaba haddii la xaqiijiyo Mr. Warnock waxa uu noqonayaa sanatarkii ugu horeeyay ee madow ee Georgia iyo sanatarkii 11aad ee madow taariikhda Mareykanka waa kan wixii uu ka yiri reer Georgia sharaf ayay ii tahay inaad igu aamin qabtiin waxaan caawa idin ballan qaadayaa in markii aan gaaro aqalka sanadka aan u shaqayn doono shacabka gobolka oo dhan aniga oo aan eegayn inay ii codeeyeen iyo in kale maalin walba oo aan ku suganahay aqalkana waxaan u shaqayn doonaa idinka oo kaliya waxaan u mahadcelinayaa dadkii iga saaciday ololaha iyo qoyskayga haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda doorashada Mareykanka waxaa qadka si toos ah ugu jira cilmi maxamed waare oo ah wariye degan dalka Mareykanka cilmi soo dhawow waxaad noo sheegtaa hadda wixii u dambeeyay natiijada gobolka Cusmaan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo goordhow shir jaraa'id qabtay ayaa waxa ay sheegeen in inta badan codadkii harsanaa tirintooda hadda la bilaabayo isla markaana ay rajeynayaan in galinka dambe ee galabta la soo gabagabeeyo Cusmaan Raphael Warnock oo ah nin madow ah oo u sharaxnaa xisbiga dimuqraadiga waxaa lagu dhawaaqay in uu ka guuleystay musharaxii la tartamay oo ah xisbiga Republicaanka horeyna xilkaas u haysay gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler inkastoo wali aysan qiran in laga guuleystay laakiin haddana waxaa la xaqiijiyay in uu sanadka uu tagayo Raphael Warnock laakiin labada musharax kale ee David Perdue oo dimuqraadi oo Republicaanka u sharaxan iyo John Ossoff oo dimuqraadiga u sharaxan ayaa waxa guul sheegtay John Ossoff oo ah nin dhalinyaro oo 33 jir ah isla markaana wariye ahaa filmaantana duubi jiray in uu isagu ku guuleystay ayuu sheegtay laakiin waxa codadka harsan hadda ay muujinayaan gobolada ama deegaanada ay ku xoogan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga in codadku ay ka harsan yihiin marka waxa ay u badan tahay in John Ossoffna uu noqon doono musharaxa kale ee dimuqraadiga ee ku soo baxaya doorashada ku celiska ee shalay ka dhacday gobolka Georgia waxaana taasi ay ka dhigaysaa in aqalka sanadka aqlabiyadiisa ay la wareegaan xisbiga dimuqraadiga waan gartay cilmi labadan kursi sidaan sheegnayba lacag aad u badan ayaa ku baxday la leeyahay marka maxay muhiimada gaar ah u leeyihiin labadan kursi markaad eegto
muhiimadda gaar ah oo ay leeyihiin cusman waxay tahay waxaa ku xirnayd aqlabiyadda aqalka sanadka waxaa ku xiran waxyaabaha uu qaban doono madaxweynaha la doortay ee Joe Biden 4 sano ee soo socota waxaa ku xiran xubnihiisa golaha wasiirada uu magacaabay ansixintooda marka waxa ay muhiim u tahay waxa uu qaban doono madaxweynaha la doortay ee Joe Biden 4 sano ee soo socota taasi ayaa sababtay in qarash badan labadan kursi ay gasho iyadoo hadda saraakiisha doorashooyinka gobolka Georgia oo ah xubno Republicana ay 100% ku eedeynayaan kuraastan ay waayeen xisbiga Republicanka inuu mas'uul ka yahay madaxweyne Donald Trump maadaama inta badan doorashooyinka gobolkaasi uu dhaliilay isla markaana uu ku tilmaamay inay yihiin doorashooyin lagu shubtay aad baad u mahadsan tahay cilmi maxamed waare oo qadka toos ugu jiray mahadsanid cilmi sanadkii hore dalka Nigeria 36 barasaab ayaa qaatay go'aan ay kaga dhigayaan kufsiga xaalad degdeg ah oo ku habsatay taasina waxay keentay in ay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan sharciyada looga horjeedo dambiyada galmada iyo tacadiyada jinsiga qodobka dibadda Nigeria soo jiitay waxa uu ahaa sharciga ay soo saareen gobolka Kaduna ee waqooyiga Nigeria kaasi oo ahaa in la dhufaano ama dil lagu xukumo si loo ciqaabo kuwa kufsada ilmo 14 jir ka yar mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay rabaan inay digniin u noqoto kuwa wax kufsada iyadoo gobolkani in ka badan 1000 kufsi ay ka dhaceen waxa laga yaabaa in daawadayaasha qaar dhibsadaan warbixintan Ishaaq Khalid waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo soo jeediya waa ilmada dhibane la kufsaday 12 jirkan agoonta ah ayaa sida la sheegay 10 nin kufsadeen dabeetana waxa ku dhacay jabti ladiidi maaha magaceeda dhabta ah imika ayaa la daweynayaa weerarkan galmada ah ayaa dhacay October 7 kadib markii gobolka Kaduna ay adkeeyeen sharcigooda kufsiga waxaana kamid ah sharciga in la dhufaano isla markaasina la dilo kufsadayaasha haddii ay ka yar yihiin dhibanayaashu 14 jir noloshii gabadha way baabiyeen annagana wayna dhaawaceen aad ayay nooga caraysiisay si aadnana way noo taabatay hadda dadku way ka dhex baxdaa waxayna noqotay qof afgaaban oo mar walba fikiraysa markii hore waxaan ku naqaanaa furfurnaan iyo inay carruurta aad ula ciyaarto laakiin waxaan hadda aragnay inay dib u guratay oo aadna moodo inay iyadu isku mashquulsan tahay waxaan rajaynayaa in dambiilayaasha la ciqaabi doono sida ku cad sharciga cusub ee Kaduna dhibaatada kufsigu meel halisa ayay maraysaa Kaduna uun maaha guud ahaan Nigeria waa mushkilad heer qaran ah laakiin faquuqda gaamurtay oo lagu hayo dhibanayaasha nidaamka sharciga oo aan dhaqso u shaqeynin ayaa kamid ah carqaladaha hortaagan in lala tacaalo ururada haweenka ee Nigeria ayaa ka hadlaya walaacooda way adag tahay in la ogaado dhab ahaan tirada kufsiyada ee guud ahaan 36 gobol ee Nigeria laakiin gobolka Kaduna oo kaliya ayaa mas'uuliyiintu sheegay in la diiwaan galiyay 1640 kiis laga soo bilaabo bishii January ilaa November 2020 ku dhawaad kala badh kiisaska 1640 ayaa dhacay 3 bilood ee lagu jiray xayiraadihii coronavirus ee 2020 markaad barbar dhigto 700 ee kiis ee 2019 inkastoo ay badan tahay tiradani haddana waxa la aaminsan yahay inaan qaar badan oo kale laba soo sheeginba in la xukumaano waa naadir tani ayaa ka cadhaysiisay dadka u ololeeya ka hortagga kufsiga sida Xaajiye Rabbi Suleymaan Ibrahim ururkeeda Arida ayaa dabagalay 500 oo kiis sharcigu waa sharci fiican haddii la fulinayo balse waxaa jira dib u dhacyo dhibaataduna waxay tahay inaan caddayn u baahannahay bilowgaba taasoo ka bilaamaysa maalinta ilmaha yar la kufsaday markaad ilmaha ka soo qaado gurigooda waa inaad saldhig booliis geyso kadibna booliiska ayaa cisbitaalka dowladda geyn doona waxaanad halkaa ku eegaysaa in galmo dhab ahi dhacday iyo in kale barar ma jiraa dhiig ma jiraa kuwaasi waa caddaymaha looga baahan yahay maxkamadda sare ee cadaaladda dad badan oo Nigeria ku nool ayaa aaminsan in ku nabadgalka kufsigu ay tahay ta uga sii daraysa faquuqida ayaa iyana kamid ah oo aan dhibanayaashu soo sheegaynin dhibaatada tan iyo markii sharciga cusub ee gobolka Kaduna uu hirgalay bishii September cidna lama xukumin sharcigu buuq ayuu dhaliyay hay'adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay mid xad dhaaf ah laakiin dawladda ayaa leh yaan laga hor dhicin faa'iidada sharcigan kiisaska kufsiga qof walba door ayuu ka ciyaaraa waxaan aaminsanahay inaan jid fiican ku soconno dadku waa ku faraxsan yihiin sharciga anaguna waan ku faraxsanahay siday noqotaba anigu ka hooy ahaan haddii gabadhayda ama wiilkayga lagu xadgudbo aniga iilama muuqdo sharci qalafsan maxaa yeelay waxaa ii muuqata nolosha canugayga oo la burburiyey marka aynu dhankaana ka eegno dooda ka taagan sharciga ogolaanaya in la dhufaano ama la dilo kufsadayaasha ayaa weli socota sidaas oo ay tahay ayaa bulshadu haddana rabtaa in si toos ah looga hortago kufsiga
bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. maxkamad Britain ayaa diiday in la daminto aasaasaha Wikileaks Julian Assange maadaama loo arkay in qatar ay ku tahay inuu safro. dhageysiga ayaa ka dambeeyay go'aankii Isniinta ee ahaa in aan loo dhiibin Mareykanka si uu u wajaho dacwado basaasnimo taasoo Mareykanka ay racfaan ka qaadanayaan. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa qirtay in qorshihiisa dhaqaale guuldaraystay qayb kastana ay ka hooseyso sidii la filayay isaga oo ka hadlayay kulanka ugu horeeya xisbiga 40 sano waxa uu sheegay inay tahay in si qeexan loo qirto. Mr. Kim waxa la filayaa inuu soo bandhigo qorshihiisa cusub ee 5 sano. hay-adda daawada Yurub ayaa ogolaatay tallaalka ay samaysay shirkadda Mareykanka ee Moderna in midowga Yurub laga isticmaalo. qaybta daawada maamusha ee Yurub ayaa lagu dhaliilay inay aad u gaabis ahayd marka la barbar dhigo dhigooda adduunka kale. 2 toddobaad ka hor ayay fasaxeen tallaalka Pfizer in Yurub laga adeegsado. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook, fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ee caalamka nagala soco BBC Somali Twitter, Instagram iyo YouTube-ka oo haddaba aad toos nooga daawanaysaan. weli waxa inoo soo socda caawa aad qaybta dambe ku daawan doontaan. Allah u naxariistay wariye caanka ee BBC-da Axmed Cabdinuur ayaa saaki ku geeriyooday magaaladan London. weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamkaan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn.
dimuqraadiga ayaa u muuqda inay ku guulaysanayaan sanadka Maraykanka maadaama ay soo baxayso natiijada doorashada ku celiska ee Georgia. Nigeria 36 barasaab ayaa qaatay go'aan ay kaga dhigayaan kufsiga xaalad degdeg ah. Allah u naxariistee waxaa magaaladan London maanta ku geeriyooday Axmed Cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaashii Soomaaliyeed magaca weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda. Axmed waxa uu ku xanuunsanaa magaalada London labadii toddobaad ee u dambeeyay. Axmed Cabdinuur waxa uu ku dhashay magaalada Ceelbuur sanadkii 1955. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ku soo qaatay magaalada Muqdisho. waxa uu dhigtay jaamacaddii Lafoole. Axmed waxa uu ka mid noqday wariyaashii raadiyo Muqdisho 1982 isagoo ka mid ahaa raggii ugu firfircoona. waxa uuna ka mid ahaa wariyaashii lagu furay telefishinkii Soomaaliya horaantii 80-kii. Axmed waxa uu ku soo biiray BBC-da sanadkii 1997 isagoo noqday wariyihii BBC-da magaalada Muqdisho ee ugu soo warrami jiray xilliyadii hogaamiye kooxeedyada. waxaana markii dambe uu u wareegay xafiiska BBC-da ee Nairobi ilaa iyo markii dambe uu ka howl bilaabay daartii Bush House iyo xafiiska BBC-da uu ka shaqaynayay. waa halkan aan hadda idinkala hadlaya ilaa iyo 1919 uu shaqada ka fariistay. haddaba maxamed axmed xaaji cagmadhige ayay muddo dheer isla soo shaqeeyeen. axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa raggii dhallinyarada ahaa ee ku soo biiray 80-aadkii ee radio Muqdisho. anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa in yar ka horreeyey. kadibna waxa uu ahaa macallimiinta waxaanu wax ka dhigi jiray iskuulka la yidhaahdo Yaasiin Cusmaan oo ku yaala magaalada Muqdisho. warbaahinta markii uu ku biiray waxa uu ka mid ahaa raggii barnaamijka ciyaaraha iyo weliba wararka oo xafiiska wararka ka tirsanaa. burburkii kadib waxa uu ka shaqeeyey Muqdisho isagoo wakiil u ahaa qaybta af Soomaaliga ee BBC-da. kadibna London ayuu yimid halkaa uu shaqaalaha ka mid noqday tan iyo intii u dambeysay. Axmed ilaa 2 toddobaad ayuu xanuunsanaa siday ii sheegtay xaaskiisa maaragtay Zaynab oo runtii aan uga tacsiyadeynayno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan. Axmed Cabdinuur nin dhallin yar isagoo ah oo ku biiray idaacadda tan iyo inta uu maanta ka geeriyooday nin dabeecaddiisu ay isbeddesho ma aanay ahayn. haddaba si aan taariikhda Axmed Cabdinuur aan wax badan uga sii sharaxno waxaa qadka xarunta wararka hadda si toos u fadhiya wariyeena Mawlid Xaaji Cabdi oo muddana isla soo shaqeynayeen. Mawlid, bal shakhsiyan bal noo sheeg Axmed qof caynkee ayuu ahaa? cismaan waa mahadsan tahay. dabcan horta ilaahay ha u naxariisto Axmed. barnaamijkeenan maanta wuxuu ku soo baxay si runtii aad iyo aad u adag. waan la soconaa xafiiska joogtay saameyn waxaana sugaya daawadayaal badan mooyaane aad bay u adkayd runtii saaka markii geeriduna soo gaartay Axmed sida xafiiska looga dareemay iyo dhammaan BBC-da qaybaheeda kala duwan xitaa qaybaha afafka qalaad. Axmed runtii dadkii ugu dambeeyay isla shaqeeyaan ayaa anigu ahaa gaar ahaan barnaamijka ciyaaraha ee timinta tooska ah. sidoo kale Axmed qaybtii ugu dambeysay wariyaashii sila shaqeynayeen raadiyaha markii la xirayay 2009 iyo 2019 February ayaan ka mid ahayn qaybta xafiiska London markii la xirayay. Axmed aan si gaar ah u xuso maanta maraan marayay xafiisyada BBC meel ka mid ah waxaan soo xasuustay meeshuu fariisan jiray. wuxuu ahaa nin xitaa markii shaqada lagu jiro jecel meel gaar ah inuu fadhiyo sida yacni nin asluubtiisa siday ahayd iyo dhowrsanaantiisa iyo shakhsiyaddiisa markaan ka hadlayo oo kale. xitaa meeshayna ku cuntayno maqaayadda oo kale markaynu xitaa isku nimaano oo aynu dabcan inaynu wada cuntayno xitaa Axmed wuxuu ahaa nin isagoo meel gaara fadhiista xitaa kursigiisa wuxuu ahaan jiray kursi aan isbedelin oo jecel inuu fadhiisto. subaxii markaa xafiiska soo galayno oo kale wuxuu jeclaa markuu inuu yimaado shaqada xilli hore ka hor xilligiisii wuxuu jeclaa inuu fadhiisto meel kadinka hore oo xafiiska ka tirsan. halkaas ayuu cabaar fadhinaya nus saac kadib xafiisku soo gali jiray. galabtii markuu baxayana meeshaasuu fadhiisan jiray. nin wuxuu ahaa afgaaban oo aad iyo aad qof kasta oo BBC-da ka tirsan iyo qof kasta oo yaqaanaba Axmed aad u jeclaa. shaqada markay timaadana wuxuu ahaa nin shaqada jecel oo marka qaarkood aad arkaysid inuu ka hormarin jiray waxyaalo badan. cibaadada markay timaado wuxuu ahaa nin asluub badan oo cibaado badan. waxyaalaha kale oo aan aad ka u xusu karna waxaa ka mid ah Axmed markaynu ka sheekayno waxaanay oo dhan adiga iyo aniga iyo asxaab badan oo BBC-da ayaa wax ka bartay Axmed waxbarashadiisii.
qaybta BBC-da waxbarashada ama akademiyadda ayuu sidoo kale gacan uu ka geystay oo uu soo saari jiray barnaamijyo iyo warar loogu talagalay dadka inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan da'yarta waxaan oran karaa wuxuu ahaa haliyey waxaan oran karaa tiir waxaan oran karaa udub dhaxaad inuu ahaa saxaafadda Soomaaliyeed isla markaasna BBC-dana qof weyn oo runtii ka baxay waana dareemaynaa maanta xafiiska oo dhan waa laga dareemaya Cismaan aad baad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi ayuu ahaa oo taariikhda Axmed noo soo koobayay Axmed wuxuu ahaa qof dabeecad gaar ah oo aad ugu wanaagsanaa dadkana gacan qaban jiray shakhsiyan si aad ay ii taabatay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Axmed Cabdi Nuur xilligan oo kale 2011 waxay ahayd badi warbaahinta reer galbeedku ayna ugu magac dareen kacdoonkii carabta waxa uu gugii carbeed uu ka bilowday Tunisia markaasi uu nin ganacsada ahaa uu dab isqabadsiiyay isaga oo ka dhidhinayay qiyaano ay kula kaceen saraakiishii musuqmaasuqayd dibadbaxyo ayaa ka dhacay guud ahaan bariga dhexe iyadoo la rajeynayay in la hirgeliyo kacaan goobahaasi ka kacay balse 10 sano kadib waxay u muuqataa in arrimahaasi ku dhamaadeen si raarayn lahayd iyadoo oo maamuladii ay isku dayayeen in ay la dagaalamaan kacdoonkana dagaallo ayaa qarxay waxaana sii xumaatay saboolnimada Mawlid Xaaji Cabdi ayaana warbixintan eegaya 10 sano ka hor toddobaadkan oo kale boqolaal kun oo reer Tunisia ayaa dalbanayay isbedel waxay ku dhawaaqayeen in la rido dawladda markii ay dhacdayna kacdoonkii wuxuu u tallaabay Masar Liibiya iyo meelo ka sii fog kaliya Tunisia ayaa dimuqraadiyad cusub u xiibsiibatay meelo kale rajooyinkii dimuqraadiyadda waa la bunbuuniyey kadibna waa ay burburtay laakiin bariga dhexe waxaa ka bilowday isbedel dheer xanuun badan oo weli qabyo ah waxaan samayn doonaa wax walba waynu samayn doonaa bilooyin ka hor 2011 waxay u muuqatay mid fudud dawladihii dalalkaasi ayaa isku dayay inay cagta saaraan kacdoonka mana jirin natiijo farxad leh gunaanadkii awoodda dadku waxay cayrisay madaxweynihii qaabka maafiyada lahaa ee Tunisia Sayn al-Abidin Ben Ali bariga dhexe ayaa kacdoonkii u gudbay waxaasi oo dhammi waxay bilowdeen kadib markii Maxamed Bouazizi oo 26 jir ahaa kana ganacsan jiray suuqa uu dab isku qabadsiiyey isagoo caraysan kana dhiirinayay kadib markii saraakiisha musuqmaasuqii ay qaateen gaari gacankiisii iyo miisaankiisii ka hor intii uusan cararin Ben Ali wuxuu cisbitaalka ku booqday Bouazizi dad badan oo reer Tunisia ah waxay u arkayeen inay tahay isku daygii ugu dambeeyay ee dambiiluhu uga faa'iideysanayo dhibanaha dhimanaya sidii Bouazid magaalada Bouazizi uu ku dhashay waa mid yar oo sabool ah laguna yaqaan inay iska caabiso madaxda xun magaalada Sidi Bouazid bishan Janaayo 10 sano oo dhaqaale xumo iyo shaqo la'aan ayaa wiiqday halgankiisii maya kama qoomamaynayo haddii aan fursad kale heli lahaa waan samayn lahaa nolol dhimata ayaan ku noolahay nin dhintay oo iska socda ayaan ahay wax isbedelayna ma jiraan Marwan Avi wuxuu isgubay 2012 waxaa ka muuqda haarihii dabka waa mid ka mid ah dhalintii isbedel doonka ahayd ee reer Tunisia oo xanaaq iyo jahawareer ka qaba inay ku daydeen Bouazizi kama sii qoomamaynayo wallahi min dimj waxba isma bedelin taas bedelkeedii waagaas ayaynuba fiicnayn xaaladuna waagaas ayay wanaagsanayd isagaa isgubay dadkuna waa ay dagaalameen Munira Bouazizi oo ah dhaqaaqi aan ehel la ahayn Maxamed ayaa cid walba u faradiyo qaniinsanaysa iyadoo kan iyo jabsan saboolnimada iyo rajabeelka ka tanaasuli mayna kacdoonka eedda keliya in dadka reer Tunisian u jeedinayo waa inay bilaabeen kacdoon laakiin ay isaga hareen dadka reer Tunisia waxay bilaabeen kacaan balse ma aysan gaarin hadafkoodii waxayna noqdeen hadda kuwa quus taagan ereyga quus inta badan waxaa la isticmaalayay 10 sano ee la soo dhaafay qaxootiga dagaalka iyo xagjirnimada dimuqraadiyad la'aanta ayaa 10 sano bariga dhexe hareeyay ka hor aafada fayraska isbedel doonka ayaa soo buuxin lahaa fagaarayaasha waaweyn ee Beirut iyo Baghdad 10 sano kadib sababtii dhalisay kacdoonkii 2011 weli waa ay jirtaa waxaa sii dheer caro musuqmaasuq shaqo la'aan iyo dulmi sanadkanna aafada covid ayaa ku darsantay laga soo bilaabo 2011 nidaamyadii hore ee bariga dhexe waxay u dagaalamayeen sidii ay u sii waari lahaayeen laakiin taariikhda
ayaa muujinaysa dawladnimo aan raalli laga ahayn inaanay weligeed sii waari doonin. haddana wararka cayaaraha caawa. tartanka EFL caawa Manchester City iyo Man United ayaa Old Trafford isku arkaya. cidda soo baxda waxay finaalka Abriil is arkayaan Tottenham waxayna Spurs rajaynaysaa in ay ku guulaysato koobka kii ugu horeeyay 13 sano. xalay waxay 2-0 ku tumeen Brentford. naadiga Mourinho ayaa hoggaanka qabtay goor hore kadib markii uu gool madaxa ku dhaliyay Moses Sissoko. waxaa loo tacsiinaya Colin Bell oo Manchester City u dheeli jiray 74 jir ayuu ku geeriyooday kadib xanuun yar. ciyaartoygaasi khadka dhexe waxa uu City u soo saftay 792 jeer intii u dhaxaysay 1960 ilaa 1979 wuxuuna sidoo kale qaranka Ingiriiska u ciyaaray 48 ciyaartoydii hore iyo gudoomiyaha City oo hadda Khaldun Al-Mubrook ayaa kamid ah dadkii u tacsiiyay. ugu dambeyntiina waxaan idin haynaa idinkagana tegaynaa aafada fayraska corona oo saameyn ku yeelatay kalluunka. boqorka tuunaha Tokyo ayaa sanadkan ka haray inuu ka qayb galo tartanka xaraashka kalluunka tuunaha ugu sarreeyay ee sanadka cusub. maalqabeenkan Sushi Kiyoshi Komura ayaa horay u galay tartan $3 milyan oo tuuna ku iibsanayay, balse waxa uu sheegay inuu sanadkan dib ugu degay kadib markii uu go'aansaday inaysan ku habboonin waqtiga. intaasaan kusoo gabagabaynaynaa caawiya caalamku aad ku mahadsantihiin daawashadiina. nabadgelyo.